السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو فيديو جن مانتا وان كوغلو وداقي دون أفر تلابو oo qaadi karto markasto aad dareemto in aan noloshaada la barbar dhigayso dadka kale. Magacaygu waa Cali Maxamed Ismaaciil Baashi. Haddii aad kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe si fiidiyoyaasha ugu dambeeya ay kuu soo gaaraan. Sidoo kale waxaa nagu taageertaa like-ta iyo share-ta waana free aadna u mahadsantihiin. waxaa wada ogsoonahay inayn fiicnayn inaan nolosheena la barbar dhigno dadka kale sida shaqooyinka ay haystaan, dhaqaalaha soo gala, heerka aqoon ay gaareen, guryaha haystaan, gawaarida, xataa social media postayaasha soo dhigaan, like-ta iyo share-ta ay helaan. waxyaabaha aan nolosheena la barbar dhigi karno dad kale lama soo koobi karo. waa waxyaabo aad iyo aad u far badan. Isbarbardhigga sidiisana wuxuu dilaa shakhsiyadda qofka iyo kalsoonida, wuxuuna hoos u dhigaa qofka hamigoo lahaa inuu gaaro meel sare ayuu hoos u dhigaa. Markasta waxaa iska caadi inaan nolosheena la barbar dhigno dadka haysta anaka markaas wax naga maqan. haddii aan maanta guri yar deganahay waxaa iska caadi inaan nolosheeda la barbar dhigo qof kale oo iga guri weyn. qofka iga guri weyn waxaa laga yaabaa inuu asagana sii fiirsanayo oo noloshiis lasii barbar dhigayo qofka guri weyn oo qasri degan iyo noloshoo ku nool yahay. marka nin kasta ama qof kasta qofka ka sareeya ayuu fiirsanaya. weyn adag tahay in la helo qof noloshiisa la barbar dhigaa qofka ka hooseeya. okay, insha allah videogan sidaa soo sheegnay waxaa kula wadaagi doonaa 4 tilaabo oo aad markaas samayn karto markasta aad dareemto in aad noloshaada la barbar dhigayso dadka kale. qodobka ugu horeeya waa inaan marka hore beerteena waraabinaa. markastoo aad dadka kale ku mashquulno waxaa meesha ku dhuma waqti badan, manana caawin doonto inaad dadka kala daawano siday beertooda u fashaan ee u waraabiyaan ee miraha uga soo gurtaan. waxaa ka wanaagsan inaan beerteena falano oo abuurano geedo fiican oo miro fiican ka goosano. oo ula jeeda macnaheeda waa inaan nolosheena maalgashi ku sameynaa. ha ahaato inaan xirfad cusub baranayno markaas, ama howlaha noo yaala guriga ama banaanka aan qabanayno markaas. intaad daawan lahayn dadka kale oo nolosheena aan la barbar dhigi lahayn waa inaad teena marka hore aan meel soo saarnaa. okay, qodobka labaad waa in aan ku qanacnaa heerka aad taaganaha maanta iyo sida aan nahay waa inaan ku qanacnaa. waxaa wada ogsoonahay cudur aan la baarin oo aan la soo ogaan wuxuu yahay in aan la daaweyn karin. sidaas darteed waa inaan ogsoonaanaa waxyaabaha nolosheena aan waxba ka bedeli karin sida qaab dhismeedka jirkeena oo ilaahay markaas nagu abuuray. haddii aan awoodin inaan wax ka bedelno waa inaan ku qanacnaa oo ku sabarnaa. kadib waxaa awood u leenahay ama fursad u leenahay inaan hore ugu sii dhaqaaqno oo aan markaas dadka kale aan isla barbar dhigin. qodobka saddexaad ka taxadirno social media. dhammaantiin waa isticmaalna social media, waxay noqotay wax iska caadi ah. waxaana si joogto u aragnaa dad kala duwan iyo noloshay ku nool yihiin iyo waxay sameeyaan maalin kasto. ha ahaato Facebook, Instagram, Snapchat iyo kuwa kaloo fara badan. laakiin waxaa sahlan anagoon u qasdin markaas inaan nolosheena la barbar dhigno dadka kale noloshooda highlightkeeda, ama dadka kale markay faraxsan yihiin ama xaflad ama aroos ama waqtiyo muhiim markay ay ku jiraan ay soo koobeen oo lasoo jarjaray meel lagu soo arooriyey. waxaa sahlan inaan la barbar dhigno nolosheena markay hooseyso aan murugeysanahay ama ee naga taalo oo aan markaas dareemno murugo ama kalsooni darro aan marka meesha ka qaadno. marka haddii aad dareemaysid markasta aad social media isticmaalaysid, haddii aad dareemto in kalsoonidaada ama niyad jab ama maseer badan hadduu ku galo, waxaa samaysaa in aad iska xakamaysaa social media. haddii aadan xakamayn waxaa ogsoonaataa social media ayaa ku xakamayn doona. qodobka ugu dambeeya videogeena maanta, markasta waxaa ogsoonaataa heerka aad maanta taagan tahay waa qayb yar oo ka mid a noloshaada. maanta meesha aad taagan tahayna macno weyn kuma laha ama saameyn weyn kuma lahan meesha aad gaari doonto 4 sano 5 sano ama 10 sano soo socda. meesha gaari lahayd saameyn weyn ama macno weyn kuma lahan, maadaama aad awood u leedahay ama fursad u leedahay in aad isbedel weyn samayso hadduu ilaahay cimrigaas ku siiyo. marka sidaas darteed muhiim ah inaad dadka kale oo ayaga xitaa waqti dheer kusoo qaatay inay meesha ay joogaan arkaysid maanta ay soo gaareen inaad isla barbar dhigto. waxaa fursad u haystaa in adiga isbedel samaysid oo beertaada waraabisid. okay, videogeena maanta oo kusoo qaadanay 4 tilaabo oo aan samayn karno markastoo aan nolosheena la barbar dhigno dadka kale. 1, waxaa soo sheegnay in aan marka hore beerteena waraabino. 2, waa in aan ku qanacna heerka aad joogno iyo sida aan nahay waa inaan ku qanacnaa. 3, waa in aan ka taxadirnaa ama ka digtoonaanaa social media. 4, meesha aan maanta taagannahay macno weyn kuma lahan, sanado badan ama 10 sano soo socdo macno weyn uma lahan. marka waxaan rajaynaa inaad fahamteen. wixii talo iyo su-aal soo jeedin fadlan markasta comment inoogu soo qora. videoyaal kale hadaa jeclaan lahaydeen ha ahaato tiknolojiyada, dhiirigelinta, waxyaabahaas dhan waa soo gelinaa. fadlan ku taxanaada kanaalkeena oo subscribe, asxaabta la wadaag. waana mahadsantihiin. waxaan inoo ballan video kale. waan anigu Cali Maxamed Ismaaciil Baashi oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.